السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta waa mar kale iyo isku soo noqosho wanaagsan. waa miskiintii walaashiinaheed asxaabta cusub waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin nagu soo biirida aan nagu soo biirteen. asxaabtii hore oo kale joogtana waxaan leeyahay kun jeer mahadsanidin. waxaan rabaa inaan ka hadlo qisadani hooyay ku dhacday, hooyo Soomaaliyeed ku dhacday. Soomaali waxay ku mahmahdaa kor biliseed kaba isma dheera. hooyo Soomaaliyeed oo ku nooleed Soomaaliya, ilmaha Ilaahay siiyey, wiilka ilmaha isku dhaleen way kala tageen, calafka kala waday. ilmaheedii hadda nin Soomaaliyeed waaba dhaqankeenne, ilmo markay hooyada kala tagaan hooyadii ilmaha ayaa israaca. ilmihii ayay iska korsanaysay hooyadaas. ilmaheedii waxbarashay u galeen, quraan bay dhammeeyeen, 14 boqolkay barteen, iskuul bay galeen. maalinba colaada Soomaaliya ka dhacaysay, hadday tahay dagaaladii kii maxaakiimta, hadday tahay kii Itoobiyaanka, unbay maalinba meel ula daala dhacaysay. adugu waqti waxay la daalaa dhacdo, daruuftu maalinba si nolosha ay ku raadiso, maalin weyso, maalinba nuuc nolosha ay ku soo marto. waxaa dhacday ilmaha aabahood waxaa qaaday eedo oo ilmaha eedadood oo odaga la dhalatay ayaa wadamadan Yurub geysay. waxay tiri waxaan kuu soo dhoofiyey gabadhaas ilmaha ay la dhibaataysan tahay oo rafaadka ay ku korinayso inaad soo qaadid. wuxuu ku yiri walaal, xaas buu lahaa, xaaskiisa Afrikay joogto markaas, xaaskayga ayaan soo qaadayaa, ilmaha iyo xaaskan isku soo qaadayaa uu yiri. marka xoogan hooyadii waxay tiri waan ka yara cuslaystay in la isku qaado ilmahayga iyo xaaska. ayadoo xoogaa hadda ka hor waxaa dhacday wiilka ilmaha u curadka ahaa in loo geeyey oo xaaska intii loo geeyey ay aada u dhibaataysay. ayadoo halkaa dareensan ayay ka cudur daaratay in ilmaheeda Afrika la geeyo oo xaaska loo geeyo isku mar la qaado. adugu ilmuhuna markaas xoogaa way yaryaraayeen, xaaskiisii iska qaatay, waqti dheera Yurub la iska joogay, adiga 3 sano camal ah kasoo wareegtay meelahaas. kabacdi ayaa eedadii waxay tiri walaalay ilmaha ma la qaado, ilmaha ma meeshaan ka wadid, waxbarasho ka tayo fiican midaan iyo nolol ka fiican ay helayaan, 5 bilood kabacdi aday kuu soo dacwoonayaan. adu wax saasi ku tiri. waxay ku tiri walaalay hadda ka hor waad ogeed inaan wiilka weyn siiyey, dhib baa ku dhacay, marka ilmahayga uma aamino. waxay tiri walaalay annagana aamin, anigaa ballan qaadaya 5 bilood kabacdi in la soo qaado, adiga lagu soo qaado ilmahaas markay wadanka soo galaan. 5 bilood kabacdi adiga ayaa lagu dacwoonayaa. sidii ayay hooyadii ku ogolaatay ilmaheedii in la qaado. jabbo wuu dambeeyaaye ilmihii in la qaado ayaa la isku afgartay. ilmihii qarashkii hooyada inta badan hooyadaa bixinaysay. safar bay kala dhaqaajisay, Addis Ababay la tagtay, safaaradii dacwadii baa la xareeyey. markii dacwadii la xareeyey adiga waraaqadihii waxay gudbiyeen, waa xareeyeen, way soo noqdeen meeshii Soomaaliya ku soo noqdeen. soo noqoshadaas adiga waxaa ka soo wareegtay taqriiban 6 bilood kabacdi ayaa loo soo jawaabay. waana qaybta labaad haddii Ilaahay idmo. jab maanta markaanu bilaabanayaa inuu dhibaateeyo walaashaa ha dhibaatayn, yaa walaashaa ha dhibaatayn. ilmahaaga dhib aada la jeclayna ilmo gabar walaashaa ay dhashaha la jeclaan. waayo hooyo ilmaheeda dhib la jecel ma jirto. waayo gabar walaashaada ilmaheeda aad u dhibaysaa oo dhib ula jeclaane
oo inay kuwaa ka hooseeyaan daciif noqdaan nolosha ka dhacaan wallaahi waa jaahilnimo waa daciifnimo marka waa noo baarti 2 iyo haddii ilaahay idmo meesha xanuunka ka bilaabanaya waa markay Yurub tagaan ilmahaas dhammaantiin aadaan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu